والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة ولا ليال، إلهي بمهضله تبارك وتعالى إنه سامحي إنان كوكولانو في هذا اللقاء المبارك، كلا كان آدك أبركيسا إن شاء الله تعالى، ورجيني إنه إنان كالفائدة سنو فيما نستطيع انت انكرينو إلهي تبارك وتعالى. هذا ولا ليال وحنقن كبلن قادني بهيد موضوع كسابسن عسبونيسين تنولشا كبعينتا عقلقة أما كبعينتا أفكارتا إيو إنان لإسكو ديبين نولشا سيدي دوني هواتكاتي. marka mawduucaas baan insha Allah taala ka hadlaynaa. Waa mawduuc aad u fiican maxaa yeelay waqtiga aan ku jirno ayaa inagu qasbaya inaan mawduucaas insha Allah taala aan fiicnayna insha Allah taala aan ka hadalno wajeda. Walaalayaal waxaan ku jirnaa marxalad adag oo bini aadamku uu ku sugan yahay, marxalad ay abuurmayso taariikh cusub, marxalad ay burburayaan quwado waaweyn, marxalad ay abuurmayaan quwado cusub. waxaan noolnahay marxalad u baahan in dib u eeg la sameeyo, nolosheenna aan dib u eegno, dib u fiirino, in aan dib u akhrino taariikhdeenna, habsocodkeenna, waxaan aaminsannahay, waxaa madaxeenna ku jira, sida uu qur'aanku inoogu yeedhay ilaahay kitaabkiisu tabaaraka wa tacaala. إلهي في سورة القيامة وحكي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إلهي وحكي دارتي مالنت قيامها أو مالنت أبو أدق بني آدم صومري دونتا، وحكرون إلهي كدارتي تبارك وتعالى نفت بني آدم كتعنان تبضل، بمعنى تحسابي سقفك بني آدم كان قفك أن من سنين من سن إني وحكم قيهن وحكم مقنا الضبقرة الردعية. ولهذا أبو إلهي جل وعلا نفتا أبو قدارتين علماء وحيد هذان أي التي تلوم صاحبها ونفتا عنانة ساحيب كيد يكو عنانة ما لم يفعل لما لم تفعل، وحي فعناء سمين لها محاد سمين ويدي، وحي حماء سمين محاد سميسي، وحكا مقنا محيكا مقنتهي، waxaad haysidna maxaad u kubcin laadahay. nafta noocaas aaminsan ayuu ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala. marka marxaladda aan nool lahay waxaan dhammaanteen inteena ugu badan aan galnay waxa loo yaqaano al-i'tikaaf ad-daruuri, i'tikaaf idiraari ah oo nalagu qasbay, i'tikaaf aanan ku talagelin, aan dooran ayaa adduunka la geliyey. waxaad ogtihiin waxyaalada aadka u yaabka badan ee dunida kusoo biray waxa weeye 10 sano ilaa 20 sano baa laga hadlayay ekolojiga hawadu inay xumaatay, bini aadamku inay istaagaan, inay wax ka qabtaan. laakiin ilaahay dadkii intuu guryaha wada geliyey iyo caasimadihii adduunka ugu waaweynaa la faaruqiyey iyo hawadii dib isku hagaajisay. Chinaha hawadiisii way fiicnaatay sida laga warramayo, Mareykanka hawadiisii way wanaagsanaatay, Canada wadanadii 8 ahaa ee soo saarkoodu aadka u culusaa hawadii ay fasaadiyeen, ay talawuska ku sameeyeen, dhammaanteed hawadii dib ay isku soo celisay. waxaa la arkay makhluuqaad aan hore loo arkayn, xayawaan baxsaday oo badaha hoos galay, meel uu tagay la waayey yaa dib u soo baxay, noloshiibaa dib isku miisaamaysa. marka dadkan ilaahay i'tikaafka u geliyey waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto. marka insha Allah mawduucaas baan ka hadli doonaa oo u bixiyey nolosha jadiidi ama cusboonaysi noloshaada. waxaan kaloo u bixiyey afkaartaada iyo caqligaaga kubci, waxaan kaloo u bixiyay hasdiibin. sidaa daraadeed waxaan jecelahay inta aan mawduuca aan gelin inaan maadaama aan idhi waxaan bilaabi doonaa duruus ku saabsan sidee nafta loo koriyaa. waxaan ku horeysiinayaa ilaa iyo waxaan idin soo bandhigi doonaa wax aan ku tilmaamay ilaa iyo maxaan ku dhahdaa 13 fikradood baan idin soo bandhigi doonaa insha Allah taala hadduu ilaahay yiraahdo. marka 13 maahina waxaan idin soo bandhigi doonaa ilaa iyo 16 fikradood. 16 ka fikradood waxa ay ka qayb galayaan
cusboonaysiinta nolosha yacni kobcinta nolosha iyo in laisdiin bay ka qayb geli doonaan laakiin inta aan taagelin waxaan jecelahay inaan laba arrimood iyo xadiis aan ka hadlo xadiiskaas oo ku saabsan xadiisaanta inaan akhrino ah waqtigan aan nool lahay haddaba ikhwaani fillah walaalayaal waxaa halkan inoo yaala koronaga amba cudurkani covid-19 waxa uu leeyahay baa la yidhi mashaakil wuxuuna ku badnaan doonaa mashaakilkiisu wadanada baahan ee faqriga uu ka jiro jabuuti oo kale 800 qof baa la sheegayaa laakiin waxaa ka yaab badan 2 qof oo qurataa ku dhimatay waxyaala yaab kale ku jirtaa ee la akhrin karin waxaa kale oo la sheegayaa bahashan China sameeyay ee shaybaarka ee lagu baarayo 30% waxaa la sheegay inaynan ahayn naajix run inaynan sheegayn oo fashal badan uu ku jiro 30% waxaa kaleeto oo meesha yaala oo laga waramayaa in faqrigu iyo baahidu iyo gaajada fidsan ee ka jirta dhulkeena gaar ahaan geeskeena Afrika inay keeni doonto inuu cudurkani dhabar jabis uu sameeyo marka cudurkani bilowgiisii baa nool lahay bika ayaa hore la inii sheegay laakiin dhibaatadu waxa weeyaan waa cudurkan iyo faqriga maxay sameeyeen marka dawladaheenan Afrikaanka ah ee gaar ahaan geeskeena Afrika waxay sameeyeen waxay ku daydeen fikradda reer galbeedku dadka wadanadan lacagta leh amba khaliijka kale ee dadkii guryaha galiyay waxa markaa la yiri guryahana hal la galo waa koow masaajidda hal la xidho waa labo arinta saddexaad waxa la yiri hal la kala fogaado gacmaha hal la meydho hal la dhaqo wax aynkaasoo iska caadi ah iyo dadka loo sheegay waxa loo yaqaanaa mashaariic juz'iyya waa mashaariic gobol ah qayb ah يعني مشكلتنا waxay u baahan tahay sidii maalintii hore azmada aan ka hadlay waxay u baahan tahay in la qaato laba aragti oo xoog badan aragtida ah inuu noqdo xalku shaamil dhibaatada in haysata waa corona imika laakiin ma aha corona waxa la xalinayo corona-ga wuxuu keeni doono waxa la xalinayaa corona-ga waxa la socda waxa la xalinayaa qaraarka la qaatay dhibaatada la socota waxa la xalinayaa dadka waxa ku dhici doona ayaa la xalinayaa marka maxaa la yeeli Djibouti sanduuq baa la sameeyay waxbana aan ka qaban dadkii gaajada ku sii beeriyay wadanada kale ee Soomaaliya Somaliland iyo wadanada kaleetana wax badan oo ilaa imika talaabo laga qaaday lama hayo sidaa daraadeed waxa weeyaan waxaan u baahanahay mashruuc xalku inuu noqdo xal shaamil ah waxyaalada yaab kale waxa kamid ah dadka in lacag laga ururiyo oo la yiraahdo lacag la bixiyo maaha waxa weeyaan 3 shay baa la sameyn karaa si lacag loo helo arinta koobaad waxa weeye xoolaha ay haystaan dadka xoolaaleyda ah kuwa xoolaha xaraan ay ku soo gashay iyo kuwa ay xalaal ku soo gashayba waa in nisba laga qaado nisbo lagu xukumo nisbadu waa maxay waxa lagu xukumayaa midaan 15% 20% xoolaha ay haystaan inay geliyaan la dagaalanka faqriga oo nin walba uu sameeyo meel isagu uu dadka faqriga kala dagaalamo dawladdu wax loo dhiibo ma dawladdu way cunayaan marka sidaa daraadeed waxa weeyaan inaad adigu aad samaysatid meel aad kula dagaalantid laakiin nisba la isku xukumo culimadu soo saara nabigu muxuu yiri salaatu wasalaam fil mali haqqun siwa zakat maalka waxa ku jira xaq aan ahayn zakada xaq aan ahayn baa ku jira culimo fara badan waxay soo bandhigeen in zakada la soo qadimo in dib loo dhigo in waxaas waa iska wacdi oo wax badan ma qaban karayso laakiin waxa la rabaa waxa weeyaan in aanan wala zaka la soo hordhigo la soo bandhigo zakada waa la bixin doona qof kasto muslima zaka uu bixinaya oo ilaahay ka cabsoonaya qof aan zaka bixinaynin ma jiro laakiin zakada uu qofku bixinayo ma tirtiri doonto faqriga maanta yaala marka sidaa daraadeed waxa loo baahan yahay qofku inuu isku xukumo 15% 20% xoolaha uu haysto inuu bixiyo maanta oo uu kula dagaalamo faqriga sharikaadka waaweyn ee koonfurta Soomaaliya ka jira sharikaadka waaweyn ee Puntland ka jira sharikaadka waaweyn ee Somaliland ka jira sharikaadka waaweyn ee Djibouti ka jira sharikaadka waaweyn ee gobolka shanaad ee Soomaalida ka jira sharikaadka waaweyn ee Kenya ka jira intuba waxaan ugu yeeraynaa iyagoona qof kale xoolahooga u dhiibin inay iyagu isxakumaan ay xoolahooga soo saaraan oo kadibna ay ku xukumaan inay kula dagaalamaan hada al-faqr al-mumanhaj ilan gaajadan ka jirta adduunkeena waa gaajo la sameeyay maaha gaajo ilaahay keenay tabaaraka wa tacaala nidaam xumada gaajada keentay balaayada nidaam xumada keentay marka taasi waa mid koobaad weey
kuwan xoolaha xadayna anu 10 malyan baan bixiyay iyo 3 malyan oo franc baan bixiyay Djibouti waxa ka maqlayo waxa sax maaha waa inaan nisbo weyn xoolihii aad xaday aad bal cala aqal balanshiisma tabiyad aad ku sameeysid ummadda dib aad ugu soo celisid marka taasi waa midda koowaad weeye midda labaad waxa weeye ikhwaani fillah dagaalka ugu weyn ee Afrika geeskeena Afrika waxa weeye waa jaadka waxaan anu la yaabanahay sida nin doctor oo ka hadlayay magaalada Hargeysa oo Muuse Bixi la hadlayay oo fariidnimo kula hadlayay aan maqlayay waxa weeyaan wali ma jiro qof inta uu soo fadhiistay televisionka ayaantii ugu horeysay ee aan soo fadhiistay halkan waan sheegay oo ka hadlay jaadka ma jiro amba qaadka geedka qaadka la yiraahdo waa problemka ugu weyn ee ina baabi'in doona keeni doona inay dad fara badan oo ummadeenu ay dhintaan oo cudurkan corona ay ku dhintaan marka inta aan miskiin la xidhin inta aanan la xidhin suuq waxa ka horeeya in qaadka la joojiyo qaadkani riwaayad maaha qaadku waa mushkilad inta corona inoo mushkilad buu maantana waa mushkilad laba laabatay amba shan laabatay amba toban laabatay marka qaadkaasi xal buu u baahan yahay anu waan ogahay oo qaar baa oranaya dhaqaalaha naga soo gala dhaqaalaha ilaahay quraanka markuu khamriga ka leexuri wa ismuhuma akbaru min naf'ihima dambigooga iyo dhibaatadooda ka badan nafcigiisa marka nafciga jaadka ka imanaya mashaakilka uu keensanayo oo insaanka tirtiraya ayaa ka weyn marka qaacidadana waa in la qaato arinta saddexaad oo corona-ga wax weeyaan ayaan dhaweeyay waxaan akhriyay xagga zakada diraaso cajiib aan akhriyay diraasada waxaan ka akhriyay doctor Ali Qardaaji wuxuu ku takhasusay faqiihna waa dhaqaalaha islaamkana waa ku takhasusay wuxuu yiri zakada muslimiintu ay haystaan xoolaha muslimiintu ay haystaan maal qabeenada markaan xisaabinay xisaab cilmiga ku fadhiisteen shirkii Malaysia ka qayb galay ee culimada islaamku isku yimaadeen wuxuu yiri hadii lacagta la bixiyo zakada ka baxaysa 3 sano gudaheega yakhtafi al-faqr min al-aalam al-islami faqriga iyo baahidu way qarsoomi way baabi'i dunida islaamka marka waxa loo baahan yahay walaalayaal dadkan inay faqri la dagaalamaan inay cudurro la dagaalamaan iminka marka laga hadlayo mesela corona wadanadeenu ay ka hadlayaan waxay u jeedaan inay adduunyada u soo gurmato waa projectyaad weeyaan mashaariic la sameysanayo laakiin su'aashu waxa weeyaan ma ogo maanta adduunka inuu isbedel ka dhacay Mareykanku lacagtii buu ka joojiyay ururka caafimaadka adduunyada uu ka joojiyay xoolihii siinay adduunka isbedel baa ka socda gargaaradu way istaagi doonaan wadanadan iyakiiba isxambaari karila اوروبا العجوز اوروبا way duqowday Isbaaniya loo gurman kari waayay waxa loo gurman kari waayay Talyaani oo Yurub ku yaala waxa u gurmatay Qatar waxa u gurmaday Turkiga waxa weeyaan Turkigu wuxuu maanta soo saaray dawadii saddexaad ee corona kula dagaalamayo markii hore wuxuu soo saaray cilmi baarista haddana wuxuu soo saaray bahal kale oo maaragtay qofka hore loogu ogaanayo imikana wuxuu soo saaray jihaaskii gargaarayay naqaska oo waliba uu yiri waa nooci ugu dambeeyay oo dunidu ayna sameeyeen marka wax weeyaan wadanadan dadaalaya oo nool oo doonaya inay taariikhda galaan taariikhda daaqada laga ma galo albaabiyada ka galaya dadaal baa lagu jiraa si caalamiya loogu jiro marka saadaraad ani waxa ila tahay gargaarka ay waayeen reer Yurub ay kala waayeen adiga ku iman maayo waxbana adduunka ha ka iibinin projectyo iyo problemyo dad aan corona hayn in la oran corona ba haya dad fara badan baan Djibouti la xidheernay duri ma hayo ma qufacayo dhibaato male wax adduunka ilaahay ma jiro waa la wada xireeyay oo dhakhtar lagu xireeyay adduunka waxa dhawaa dhakhtar waxa la geenayaa qofku markuu marxaladda labaad ee ugu dambaysa soo marxaladda saddexaad laakiin Djibouti waxay qaadatay in dadka la geeyo dhakhtarka marxaladda koobaad dadka la ururiyo oo meel la fadhiisiyo markaas baa ina yaro dhalinyaro ah oo maaragtay ka ag daaqa maxaan ku idhahdaa dawladda la siiyay projectga cunto samaynta oo la cuntada adigu soo samee oo soo kari oo 800 ee baasho ay hayso cuntada u soo kari marka bay dad fara badan ay leeyihiin war aniga ma laga helo meesha han tago cuntada han ka cunee cuntadii baa maqaaxi baa la samaystay waa project weeyaan waa dadka dawladda ka daaqa markaas baa loo sameeynaya maartay mashruuc oo maartay dadka bini aadanka wax ku siiyo arintaasi waa Djibouti weeyaan waxaan waa film weeyaan masraxiya dhada waxa uu yiraahdaa nin maartay caalimo oo Mareykana wuxuu qoray maalin dhawata kitaab uu bixiyay sida ay Afrikaanku wadanadooda u dhaqaan amba u xukumaan wuxuu yiri dhamaantood waa masraxiyad laakiin masraxiyada waxa isla ugu buuri laba qolo kuwa Afrika xukuma iyo kuwa Afrika gargaara kuwa Afrika gargaarana filinka way og yihiin oo lacagtaasi meesha marayso iyo sida loo dhaqmayo kuwa maartay Afrika xukumana way og yihiin lacagtaas sida ay
ay ka yeelayaan yay yidhaahdeen. marka intaas waxaan ugu talagalay koronaagan aan la nool lahay wuxuu u baahan yahay caqli cusub, wuxuu u baahan yahay caqli jadiid ah. laakiin annaku maadaama aan guryo dhex fadhino, dad fara badan waxay leeyihiin waa dadka qaar baa gaajoonaya, qaar baa haraad. war nabi maxamed isagoo gaajoonaya uu fikirayay sala allah alay wasalam. dagaalkii qaswatul axzaab markuu galay nebigu sal allah alay wasalam, nin baa u yimiday wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah gaajo ay haysa. wuxuu ka qaaday maradiibu calooshiisa ka qaaday, wuxuu tusay hal dhagaxa oo ku jira, nebiguna uu ka qaado 3 dhagax buu ku xidhaya caloosha. macnaha iyadoo xaaladaa lagu jiro dadku way fikirayeen, dadku waxay doondoonayeen solutionno, dadku waxay doondoonayeen horumar. kama dhigno qofka gaajoonaya inuu fadhiisto uu isdhiibo uu yidhaahdo anu maxaan samayn karaa, waxaan samayn kara ma jiro. qofka maaragtay wax haystana uu yidhaahdo wallaahi ma bixi karayo, waxaan samayn kara ma jirto. adduunkan waxa ugu daran waxa weeye alistislaam, qofku inuu isdhiibo. sidaa daraaddeed waxaan ka sheekeyn doonaa 16 maaragtay fikradood oo nii soo bandhigayo. 16 fikradood inta aan nii soo bandhigin, waxaan jecelahay ikhwaani fillah xadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam shadaad ibnu aws uu ka warinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabo kaleba ay ka warinayaan. nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, alaa adulluka ma ku tusaa calaa sayid اlistikfaar, sayidka ilaahay lagu baryo. istikfaartu dembi dhaafku dikriga la dhahdo alistikfaar wuxuu leeyahay sayid, madax buu leeyahay. madaxa maku baraa istikfaarta buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxa weeyaan xadiiskani nebigu wuxuu kaluu yidhi man qaalaha ninka yidhaahda min annahaari dharaarta yidhaahda muuqinan biha isaga oo yaqiinsan waxa ku jira xadiiska, famaata dhinta qabla an yumsiya intoona galabtuu imanaya uuna galabaysan, fahuwa isagu min ahli ljanna, jannada ayuu ka mid yahay dadkeega. xadiiska wuxuu rasuulku yihi waman qaalaha ninka yidhaahda min alleyli habeenkii, wahuwa isagoo muuqinun bihaa rumaysan, yaqiin caqiida rumaysan, qabla an yusbixa intuuna waaberisan yidhaahda kelmadda, fahuwa min ahli ljanna. idan jannada hadduu dhinta yani famaata qabla an yusbix dhinta jannada ayuu galayaa, nebiga yihi calayhi salaatu wasalaam. xadiiskan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ina barayaa waxaan ujeedaa 5 arrimood oo waaweyn. sayid listikfaar baa dhada inaan akhrino waa muhiim. goorma? markuu waagu baryo iyo markuu habeenku soo galayo. muxuu yihi rasulka slam, allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii faغfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ila anta ya rasuul allah. xadiiskan wuxuu nebigu yiri slam nin maclinaya af soomaali ahaan, allaahumma ilaahaygiyow rabbow, allaahumma ilaahaygiyow. allaahumma macnaheegu waxa weeye ya allah, anta adigu ilaahay buu la hadlayaa qofka muslimkii, rabbii ilaahaygaa tahay. allaahumma ilaahaygiyow anta adigu rabbii kii i abuuray baa tahay, rabbii kii i khalqay baa tahay, rabbii ka i arsaaqa baa tahay. waa towxiid rububiyu qiraya. wuxuu yihi laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa mooyaane anta adiga. ilaahay buu la khitaabaya, xaq ruux lagu caabudo, axad lagu caabudo xaq adduunkan ma jiro aan adiga ahayn. towxiidka luu qiraya. wuxuu leeyahay wuu soo soconaya, wuxuu dhahayaa khalaqtanii waad i abuurtay, ilaahow adaa i abuuray, cillo kama iman. ilaahow ma ihi qof aaminsan inay dabeecaddu abuurtay naajarku, waxaan ahay qof aaminsan inaad adigu adduunkan i keentay. wa ana aniguna waxaan ahay cabduka addoonkaagii. waa arrin labaad. arrin saddexaad buu qiranaya. wuxuu haddana yidhi wa ana anigu ilaahow calaa cahdika waxaan ku suganahay ballantaadii, wa wacdika iyo yaboohaagii aad ii sheegtay ee nebiyada igu soo dhiibtay, fidraddii aad igu abuurtay anoo dhabarka aadan ku jira, sidii aad ii uuntay baan ku suganahay, ma stadactu inta aan awoodo. istidaacadeedoo dhan waan gudanayaa waajibkii iyo ballantii dhexdeena taallay. intaa markuu yidhi buu ilaahay weydiisanayaa, acuudu bika, waa arrintii afraad. ilaahu waxaan kaa magan galay min shari maa sanactu, wixii aan sameeyey oo shar ahaa adaan kaa magan galay. miskiin baan ahay, dembiyaan sameeyey, bini aadan baan dhibay,
nafteedaan dhibay adaan xaqaagii ka soo bixi waaye intaa oo dhan uu sameeyo dhan adigaan ilaahow kuu dhiibtay adaan kaa magan galay sharta nafteedoo dhan wuxuu leeyahay rabbow abuu'u laka waxaan ku ictiraafay waxaan qirayaa min qalbii qalbigayga iyo caqligayga iyo jiritaankayga iyo saliiladayda unugyadeedoo dhan ahaantaydoo dhan waxaan ka qirayaa binicmatika calaya nicmadaad aniga i siisay subxaan allah waxaad nicmad i siisay oo dhan ayaan qirayaa arrintaasina waa arrinta shanaad ilaahay wuxuu ku yidhi wa abuu'u waxaan qirayaa ilaahow yaa rabbi waxaan qirayaa bidembii dembigaygaan qirayaa waan ictiraafayaa miskiin baan ahay ilaahow xaqii aad igu lahayd kama aan soo bixin xaqay nafteedu igu lahayd kama aan soo bixin sidii loogu talagalay ilaahow kama aan soo bixin xaqay ummaddu igu lahayd ilaahow kama soo bixin wixii waajib ahaa oo dhan wixii dembi ahaa oo dhanna faraha kama wada qaadin waxaan qiranayaa inaan dembiilo ahay iyuu ku hor qiranayaa allah xadratu lilaah ilaahay hortiisu ku qiranayaa wuxuu qiranayaa baynahu wa bayna rabbih isaga iyo rabbigii laa axada yasmacuhu qof maqlayaayo ma jiro waa dikrun waa xus wixii aan sheegaynayo waa iskuul islaamku waa madrasa tarbawiya ruuxaaniya khaalisa wuxuu leeyahay fakfir lii haddaba waxaas oo dhan kol aan qirtayba ilaahnimadaadii aan ogaadayba dacfigaygiina aan ogaaday ilaahow ii dembi dhaaf sababtu fainahu laa yakfiru dunuuba dunuub axad dhaafi karaaye ma jiro oo adiga aan ahayn ilaa anta adiga waxaan ahayn yaa arxam araaximiin xadiiskaasi iyo dikrigaasi wuxuu nebigu u bixiyey sayid listikfaar inaad tidhahdid astakfir allah 70 jeer siduu nebigu sheegay amba 100 jeer waa wax wanaagsan inaad tidhaahdid rabbi kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf sida aan ku dhahno marka aan sajdataynka markaan labada sujuud dhexdooda soo fadhiisanno waxa ugu wanaagsan in dhahno rabbi kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf tabaaraka wa tacaala inaan ilaahay barino subxaanahu wa tacaala oon allahuma kfir lana waliwaalidiina ilaahu annaka iyo waalidkaygiiba ilaahu u dembi dhaaf iyo waliman dakhala buyuutana kuwa guryahayaga fadhiya musliman oo muslimiin ah ilaahu u dembi dhaaf siduu nebi nuuxba ku ducaysan jiray calayhi salaam inaan oo ilaahay barina siduu nebi ibraahim u baryay rabbi kfir lii ilaahu aniga ii dhaaf aabbahayna u dhaaf intii aana laga celin sidaas oo kaleeto waa wax soo arooray oo badan laakiin tani waxa weeyaan waa duco gaar ah waa khaas weeyaan nebi moxamed baa siiyey magaca sayid listikfaar ilaahay in lagu baryo ta ugu sayidsan waa boqorkii weeyaan idan ha ka faa'iidaysano kelmaddan maxaa ku jira haddaba meeshan 6 arrimood baa ku jira kow waxaa ku jira hortaba qofka muslimka ah maanta culummada tanmiya albashariya waxay yidhahdaan bini aadamku wuxuu maraa 3 marxaladood marxalatu waxay maraan anta marxalatu ana iyo marxalatu naxnu maxay ka dhigan tahay taasi waxaa dhawaa qofka bini aadamkii marka uu dhasho ictimaad mutlaq cala alwaalideyn waxa uu tala saartaa labadiisa waalid noloshiisoo dhan waxaa gacanta ku haya bacd allah labada dhashay amba dadka korinaya kafaalo qaaday ilaa uu ka weynaanayu 10 jir iyo 15 jir ka gaadhayo ictimaadkiisu waa cala alaakhar marka muxuu leeyahay marxalatu anta wuxuu ka leeyahay waalidkiisa ininkaa noloshayda gacanta ku haya marka uu qofku soo gaadho 18 jir ee uu maarata qaan gaadho wuxuu isku qaataa inuu wax walba yahay uu qooqaa wuxuu noqdaa marxalatu ana buu galaa waa ninka dhalinyaradu marka ay 15 soo gaadhaan 20 ay ku jiraan ilaa ay 25 ka gaadhayaan waxay ku nool yihiin atamarkusu cala daat qofku isagaa isku meeraysta marxaladda saddexaad waa la bislaadaa wuxuu qofku gaadhaa marxalatu naxnu aljamaaca marxaladda dadka bini aadanka aad inaad ka maarmi karayn aad ogaatay oo la noolaanaysid bini aadan alcamal bilfariiq maca alfariiq in dadka lala shaqeeyo marka wuxuu qofku gaadhaa halkaa 3 marxaladood waxay dhacdaa waa labada marxaladood ee hore waxaa dhacdaa waa marxalatu tufuula ilmuhu qofku uu yar yahay dadna waa marxalatu nudji qofku waa bislaaday dadka bini aadanka ah sidaabay dabiiciyan u koraan laakiin waxaa la ogaaday inay jiraan dad aan ka weynaan ana iyakoo waaweyn oo 30 jira 50 jira bal waxaan 70 jira iyakoo kula ana sidii fircawn ana rabbukumul a'la ana muxuu yidhi ibliis ana
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا كخير بدن إسقع أنا المتأخرة هي التي تخرب الحياة أنا أن كهرين أنيقا سدا أتكلم قشين مدحض أفريقيا وكله وأنا أن جبوبي ويان dadku waxay gaadhaan annaka nahnu annaku waxaan rabnaa annaku markaa waa ummadii oo dhan waa bulshadii oo dhan waa jamaacadaad ku jirtay waa ururkaad ku jirtay waa qabiilka ka tirsanayd waa nahnu waa annaka weeyaan laakiin waxaa la ogaaday bilcilmi nafsi tarbawi cilmiga nafsiga ee tarbawiga ah ee ruuxiga ah cilmiga ay sameeyeen cataa allah sakandari raximahullah cilmiga ay sameeyeen imaam alghazali raximahullah waxaa la ogaaday inay jirta marxalada afaraad marxalatu huwa marxalada afraadi waxa weeye marxalatu huwa inuu qofku gaadho inuu ilaahay isku halleeyo keligii tabaaraka wa tacaala muxuu yidhi nabi yuunus calayhi salaam laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min adaalimiin markuu isku hubsaday inuu ku dhacay fi dulumaat asalaas badii iyo maaragtay mugdigii habeenka iyo calooshii xuudka wuxuu yidhi ilaahow waxaan ku baryayaa adiga uun baan ku tala saaranayaa ee meeshan iga saar an laa anta isagu wees iloobay nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaantii uu dagaalkii lagu soo qaaday daa'ifu meeluu ka baxa waaya muxuu yihi allaahumma inii ashkuu ilayka ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس هو مرحلة هو محول النبي إبراهيم عليه السلام إذا مرضت فهو يشفين هدان حنوستؤون جرودو إساقا هي عافمات كيسينيا بل وحاكوه الرئيسي هدان عنت أبا هدان إساقا عتيسية هدان شراب أبا هدان إساقا إورابية وحاس أورن وحويان ومرحلة هو ومرحلة ما بعد النضج علماء وحيد علماء التوحيد علماء الإخلاص علماء التزكية وحيد هذان ومرحلة دا كدن بيسا مركو قفكو بسلاده وسيقل ويان مرحلة دا ويان إذن هكذا محاكو جرا قفك مسلمكو بسلانيا وإسديبيا اللهم لا تكلني إلى نفسي ولو طرفة عين إله نفتي ده إيديبين الجبر سناهاته أدو أمر كي تولي يا ربي تولى أمرنا أمرك يقع أدو قعنتك هاي ساسبولي اللهم أنت ربي إلهي وحو أقري توحيد الربوبية وحو أقري إنو يها إلهي ربي جيسا خالق جيسا أرنتا وحي قو وحي لدى لما يسا وحي الله يقعنا مانتا أتيزبيا الإلحاد لبو وحو أقري اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توحيد الألوهية إله نمذي بوقري الله بوقري تبارك وتعالى إنو يهي كقورة إلى عابده الإله والله إله هو محي المعبود وكالعابد إله هو محي الحاكم وكنلش حكمه إله هو محي الآمر كوحمروي ألا له الخلق والأمر لبضا بيساقا إسكاله لا إله وحا قفل مجرو وقعنتكو هيا إلا وحويا أنت أدقى وحوقر مركا توحيد الألوهية وكيمد انتهى وحوقري إساقا وحقو يهي سي صدحات إنسان كان محو يهي من أنا خلقتني أضاي أبوري كو مصدر كأن كيمد ماشي أن كيمد وأدقى وأنا أنيقنا عبدك أدون كاغانهي علاقة اللبدين إنو رحيسا وحويا علاقة العبد بالسيد أضاي حكما أنه استعدان جوغان أمر كاغان مقليا أمر كاغان قادنيا أمر كاغان دقيسنيا نهي كاغان كتغيا أنا عبدك waxaad ii dirtaan qabanaya waxaad ii dirina waan daynaya ana khadimuk adan ku shaqeeya okay saddex muxuu qirtay wa ana ala ahdik ballantina waan ogahay marka halkana waxa ku jira al iqrar bil khaliqiyya wal ubudiyya wal ahdiyya saddexda shay buu qirtay waan saddexaad weeyaan tawhid rububiyya tawhid al uluhiyya iyo al khaliqiyya al ubudiyya al ahdiyya inuu ilaahay adoon u yahay inuu ilaahay abuuray inuu ballantiina ku jiro ballantaasuu ka soo baxaya sida ugu dambaysa fattaqu llaha ma istadactum buu arrinta afraad wuxuu qirtay inuu yahay insaan shar badan oo khaldami kara laakiin halkuu sharkaa la tagi acuudu bika min shari maa sanactu wixii aan sameeyey oo dhanna adaa kaa magan galay annagu waxaanuna waxaad noo qortay iyo adaa igu talagalay iyo maaha أنا سأقرنيا الإقرار بالضعف
arrinta kale cajiibka waxay waliqraaru bidambi wanicma nicmadiina uu qirtay dembigiina uu qirtay luqad quratuna ku qirtay abuu'u binicmatika calaya wa abuu'u bidambii okay markuu intaas oo dhan ilaahay u soo qirtay uu ishortaagay towxiidkaas uu ishortaagay cadiimka uu ishortaagay raxiimka uu ishortaagay meliga uu ishortaagay jabbaarka uu ishortaagay jabaruudka uu ishortaagay quduuska uu ishortaagay mu'minka uu ishortaagay muhayminka uu ishortaagay qaahirka bal qahaarka wahuwa alqaahiru fawqa cibaadi uu ishortaagay qayuumu samaawaat uu ishortaagay maliku samaawaat uu ishortaagay nuuru samaawaat ayuu ku yidhi fakfir lii ilaahu ii dambi dhaaf ilaahu ii dambi dhaaf yaa rabbi miskiin baan ahay ilaahu waan sukaa dhiibay kaniisad ma tagayo eeg baadari uma tagayo wadaad uma tagayo sheekh uma tagayo maqaan ma tagayo miskiin ma tagayo gurigiisuu iska fadhiyaa sariirtiisuu iska fadhiyaa firaashkiisuu iska fadhiyaa geedkiisuu iska hoos fadhiyaa isaga iyo rabbigii baa sheekaysanaya fakfir lii ilaahay uma baahno wasta qof loo sii maro hunaaka laysa bayna allahi wa bayna cibaadihi wasiit ilaahay telefoonka qaado dhag dir qul yaa allah wuxuu koranayaa labayka yaa cabdii maada turiid ilaahay muxuu ka yidhi nebi yuunis markuu ilaahay baryay muxuu yidhi fastajabnaa lah waan aqbalnay wakadalika sidaasoo kaleetaan mu'miniintan u badbaadinaa markuu nebi muuse baryey markuu nebi baryey maaragtay ayuub muxuu yidhi fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min dur waan aqbalnay markiiba sidaa baan uga qaadnay durigii oo dhan nebi ibraahim markuu lagu tuuray maaragtay dabka uu yihi xasbiya allahu wa nicma alwakiil ilaahay wuxuu yihi qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman ilaahay wuxuu ka waramay nebi muuse markii la eryanayey ay ku yidhahdeen gaaladii maaragtay saxaabadiisii innaa lamudrakuun waana la gaadhay waana la haleelay wuxuu ku yihi kalaa ina maciya rabbii sayahdiin ilaahay bay la socdaan nebi muxuu dhahdaa nebi moxamed sal slam markuu abubakar ku yidhi haddayna soo egaan wayna arkayaan laa taxzan ina allaha macana maa danuka bithnayni allahu saalisuhuma okay marka waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa xadiiskan waa cajiib aan xafidno allahuma anta rabbii laa ilaaha ila anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu laka binicmatika calay nicmadaadii o dhan baan qirayaa wa abuu'u bidanbi dembigaygiina waan qiranaya uqirar ku yar abuu وباءوا بقضب من الله وقرننا ويه فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نكا إلى هذا هبينكي أو دنتا سوى يقينسن جنة قليا نكا دراتي إلى هذا أو دنتا سوى يقينسن جنة قليا ما لهم بوقف لمن يا موكتين أوكي إخواني في الله أنت وحن كسر بحني حديث كاس وحن إيماننا موضوعي لبعض أفضلنا هالكن أو أها نلاشى جديد عسبونيسي afkaartaadana tatwiiri oo kobci hana isdhiibin waxaa jira laba kitaab oo aad u wanaagsan oo maalin halkan niga sheegay kitaab waxaa qoray sheekheena weyn alcalaama maxamed alghazali raximahullah kitaabka waxaa dhada noloshaada cusboonaysi jadid xayaataka kitaabka kalena waxaa qoray deelkeerneji wuxuu u bixiyey noloshaada qalaqa kada stresska siisiga murugada iska daa noloshana bilow okay ma fikradda ugu horeysa nisiinaya markaa maxay tahay labada kitaab baa nisiinaya inaad akhrisataan dadka wax yaqaana waxaan rabaa in nolosheena aan jadiidino nolosheena inaynu noqon nolol baaliyowda nolosha waxaa baaliyeeya saddex arrimood kow maxaa baaliyeeya nolosha maxaa dib u dhiga maxaa nolosha ka dhiga wax qadiima oon cusboonaysiga u diida saddex shay arrinta koobaadi waa maxay in aad u noolaatid si isku mida maalin walbaba inay maalin walbaba afkaartaadu isku mid ahaato noloshaaduna isku mid ahaato dhaqankaaguna isku mid ahaado ma noqonaysid qof is-cusboonaysiiya waa kow laba waxa aad maskaxdaada inaad korin weydid ood ku soo biirin weydid wax cusub noloshaada markaa way baaliyoobaysaa walidaalika culummadu waxay dhahdaan
waxaa loo baahan yahay maalinkiiba inaad noloshaada kusoo dartid boqolkiiba 3 boqolkiiba 3 waxay ka dhigan tahay inaad ugu yaraan akhrisatid 70 ilaa iyo 100 bog oo safxadood aad kitaabka akhridid cusub madaxaaga waxaa kusoo biira dhowr afkaar cusub inaad dhegaysatid muxaadaro cusub oo wax cusub kuu sheegta madaxaaga waxaa kusoo biiray wax cusub inaad ka qeyb gashid seminaar amba formation amba tababar noloshaada wax cusub kusoo dara ayaan walba waa inaad isboonaysiisid weeyaan jadid xayaataka taas baan ku siinayaa corona ha ku siiya fursad noloshaada aad ku jadiidisid aqalkaad fadhidaa isjadiidi gurigaad fadhidaa isjadiidi waxaad fadhidaa meel cidlaa isjadiidi ka faa'iidayso inaad noloshaada cusboonaysiisid 2 sida ku qoran buugga Dirkirnaji ama buugga Maxamed Ghazali rahimahullah hanulaanin calaacal iyo murugo ee noolow fi xuduudi yawmika maalintaada maalin baad ilaahay ku siiyey waa fursad shalay waad ka imatay ma soo noqonayso beritoole inaad gaadhaysidna ilaahay baa og laakiin maanta waad nooshahay 24 saaco oo cusub buu nolosha lagu ogolaaday maxaad samaynaysaa noloshaada ku dhex noolow si fiican 2 shay samee 2 shay waa maxay dadka aad la nooshahay la farax 2 ilaaha noloshan ku siiyeyna u mahadnaq maxaad markaa samaynaysaa barnaamij yawmiya samayso min waagu markuu baryo ilaa aad ka seexanaysid inta u dhaxaysa barnaamij qoran ku soco maxaad akhrini maxaad tukani maxaad soomi maxaad maaragtay dikri samayni maxaad dad bari maxaad adiguna barani barnaamij qoro af haddaad aqoon af baro waa lagu xidhay haddaad ingiliishka aqoon ingiliish baro haddaad faranjiga aqoon faranji baro haddaad suudaaniga af carabiga aqoon af carabiga baro dad fara badan markaan maqaal carabi qoro af carabiga ma aqaana baro تعلموا برتا قبل أن تسودوا انت المدح نقل قبل أن تقودوا انت وحكابين قبل أن تتكلموا انت ندهدل مركا مال انت هذا النولو هكف فكر شري محا دعي محا وحا ايقو دعان محا نحسو برواي محا نقوى يقفي عن محا قرانك وسو حفيدي واي ابدأ الحياة الآن والله شيء من كبلو ها نقول ينقف عنان بدن او نفتي سعنانتا laakiin waxaad noqotaa qof xisaabiya saa sheegi doono marka arrintaasina waa arrinta labaad ee nasiinayo arrinta saddexaad labada kitaab waxaa ku qoran laa tadac an tawaafiha taqlibuka calaa amrik waxyaalada maalaa yacniga ee noloshaada burburinaya ha u daynin inay noloshaada gacanta ku dhigaan waxa aan macno lahayn noloshaada inay gacanta ku dhigin matalan tawaafida maxaa kamid a waxaa kamid a inaad aqbashid wax wal oo lagu soo qoro Facebook ha aqbalin boqolkiiba 80 waa been weeyaan marka tawaafiid inay ku xukumin waxyaalada maalaa yacniga noloshaada inay xukumin dadku inay barnaamij ku sameeynin inay dadku ka careysiinin inay dadku baaratay ku tuturqin adigu ahaw qof gacanta ku haya noloshiisa marka maxaa lagu leeyahay waliga ay Allah ka fikirin inaad la noolaatid maca tawaafi waxyaalada maalaa yacniga ilaahayna quraankiisa muxuu inagu yiri suuratul mu'minuun markuu mu'miniinta ka hadlayay walladina hum 'ani lagwi mu'ridun dadka lagwiga maxa maalaa yacniga mu'miniintu way u dhabar jeediyaan suuratul furqaan wa idha marru bil lagwi marru kiraman lagwiga iyo meelaha maalaa yacniga way degdeg bay ku dhaafaan maanta alxamdulillah maqaaxiyii la fadhiisanayay teemurtanadii dhulka Kanada loo fadhiisanayay maaratay fadhi ku dirarkii wixii oo dhan baa la joojiyay guryihiina tagaalay marka tawaafihdi maalaa yacnigii waa laga soo qabtay xaqaa'iqdii baa lagu hor keenay ka faa'iideyso ku noolow nolol xaqiiqiya beenta ka tag khayaalka ka tag hawaawiga ka tag khaasatan dadka jaadka cuna been bay galaan laa tadaci tawaafiha taqlibu calaa amrika arrinta afaraad dadka bini aadanka ha ka sugin inay ku yidhaahdaan nin fiican baa tahay way fiican tahay inay ku yidhaahdaan inay kuu mahadnaqaan laakiin ha isku halaynin nin maraykana oo afukaaya wuxuu yidhi 80 qof baan ka badbaadiyey in la dilo ninna igama oran waa mahadsan tahay 80 qof baa maxkamadda la geynayay
oo maraykanka dilka maraykanka waa dil xun gobolada qaarkood in la dilay ahayd laakiin ninna igama oran waa lawyer waa nin maaragtay difaaca bini aadanka ninna igama oran waa mahadsan tahay buuri aniga taariikhda waxaan garanayaa dad fara badan oo nolosha ka daatay oo ku soo celiyey oo wax badan u qabtay way yar yihiin kuwa iga yidhi waa mahadsan tahay laakiin muhiim maaha waxaa muhiim ah inaad tiraahdid in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin ajarkayga waxaan ka sugayaa ilaaha caalamkoo dhan xakuma maaha bini aadan waxaan ka sugayo ambiyadu maxay odhan jireen qul laa as'alukum calayhi min ajr wax mushqaayadoo naga doonaynay ma jiro waxaan rabnaa uun inaad bini aadan noqotaan idan waxaa muhiim ah dadka bini aadanka qofna dadku haddaad sugtid inay wax ku dhahdaan waa nin fiican baa tahay waxaa sugi ilaa ay kaa yidhaahdaan nin fiican baa tahay isma ictiraafaysid adigu marka waxaa lagaa rabaa inaad adigu is ictiraaftid isku kalsoonaatid qofna aad ka sugin inuu ku ictiraafo arinta shanaad waxa weeyaan kun nasiija waxdaka dadka bini aadanka ah waxa ay yihiin hadduu doonin waxaa tahay ka faa'iidayso haddaad aragtid nin professeera oo dhaqaalaha ku fiican anu maxaan ugu fiicnaa way hawlin haddaad ku fiican tahay dhakhtar iska noqo haddaad ku fiican tahay nin gabaya iska noqo haddaad ku fiican tahay nin najaar noqo haddaad ku fiican tahay nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam annaasu macaadin ka macaadin alard wuxuu yihi rasuulku dadku waa sida macdanada dhulka ilaahay wuxuu ku abuuray boqolaal macdanne macdan la mid ma aha dahabku xadiidka ma aha xadiidku sodiyomka ma aha sodiyomku kalsiyomka ma aha kalsiyomku lamid ma aha maxaan ku dhahdaa fosfaarka mid waliba ka kale wuu ka duwan yahay laakiin maxay ku kala fiican yihiin qaar baa dahabka ugu qaalisan ama maaska ugu qaalisan laa waxa ugu qaalisan macdan walba meesheeda marka la dhigo adduunka warshadayn marka la sameynayo xadiidka ugu qaalisan laakiin marka la xaragoonayo xadiidku faa'iido ma leh laguma xaragoon karo laakiin dahabku warshada wax uma tarayo walidaalika nabigu muxuu yihi annaasu macaadinu dadku waa macdano ka macaadini alardi sida macdada dhulka ah qof maalaa yacni ma jiro qof la tuuri kara ma jiro qof aanan hibe lahayn ma jiro qof ilaahay iska abuuray ma jiro idan kun daataka aduu waxaa tahay iska ahow nin baa u abuuran inuu biniaadanka u shaqeeyo mid baa u abuuran inuu dadka u xadiiska wad mid baa u abuuran dadka inuu diinta kusoo geliyo dacwa fardiya saaka shaqee mid baa u abuuran inuu noqdo qoro wax qor mid baa u abuuran inuu noqdo hogaamiye noqo mid baa u abuuran yani wuxuu ku fiican yahay falyafcal ha sugin inaan diraadin maxaan hebelow kale u noqon waaye dadka ha ka fikirin waxay noqdeen laa tuqaarin daataka bikayrika aduu ha isku qiyaasin qof kale qaarin daataka bidaatika naftaada ku qiyaas maada acطaaka allah iskandari baa ka hadlay caطaaullahi iskandari ilaahay muxuu ku siiyey tabaaraka wa tacaala anta khayrun maxad khayr buuxaa tahay khayr kaa buuxee tahay ka faa'iidayso taasina waa muhiim arinta kale shanaad lixaad waxa weeyaan kun biqadri qiimatika yakunu naqdu lmuwajahu ilayk labadaba isku waafaqeen ghazaali iyo deelkeer najiba qiimahaagu inta uu leeyahay iyo dadka ku kritikeynaya qofka laga sheekeeyo ee afkaartiisa laga hadlayay waa qof culus dadka bini aadankii marka aad afkaar soo bandhigtid waxay u kala baxayaan afar qolo waxaa la idhaahdaa laa lowna lahum midaba male kumana taageerayaan kaamana horjeedaan qolo markaa way ka hor imani wax uu wadaa waxaa la gelanayn halaiska diido waa odhanaya qolna way ku wada aamini 100% qolo afraadina waxna way kaa qaadan waxna way kugu diidi dadku waa intaas marka qofka nolosha wax ku soo daraya ayaa la kritikaya waxaa la dhahdaa boqorada ingiriiska marka laga sheekeynayo waxaa dhahdaa malikatu britaniya masuunatun min alkhata boqorada ingiriisku ma qaldanto waa laga dhowray qalad dadku way yaabaan oo soo qaldamayso bini aadan maaha waxayna u qaldamin liannaha tamliku walaa taxkum boqorad weeyaan laakiin xukun male laa tacmal ma shaqayso waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha shaqeeya baarlamaanka shaqeeya iyadu way saxdaan waxna mas'uulka maaha idan ma qaldanto idan alladhi la yukhti huwa alladhi la ya'mal qofka aan qaldamin waa qofka aan shaqayn alladhi la yuntaqadu qofka aan la karatikeyn la oran waxa sheegtay waxba ku jira la afkaar ma keeno cusub okay qofka qiimaha inta ay leeyihiin iyo dadku kula hadlayaan marka taas waa muhiim
ha ka cabsoonin in lagu naqdiyo naqdiga lagu naqdinayana ee wax lagu sheegayana dhegayso waxa fiican ka qaado waxa xunna iska dhaaf dadka ku naqdinaya waa saddex waa qofku jecel waa qof aanan ku jeclayn ku necbayn iyo qof ku necab okay qofka ku necabi wuxuu doonayaa haddaad sheegtid oo tiraahdi wallaahi dariiqii jannadu waa kan anaa soo arko soo taabtay kuma raacayo lianna uu ku necab yahay ولذلك النبي جينا محل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أديك بين يا النبي الله آياتها إلهي بيننا يعني مركا أدي ويكوينين يعني إن الله شيء يسوي أركيان لكن وحاسدين ويان يعني حسدا من عند أنفسهم يكون دين مركا نقدقوا وحو إماريا بقدر قوة أنت إليك تهي تأثير كاو أنت أقول ليه راد كاو أنت أقول ليه إياه لغو نقدنا مركا محال غاربا أرنتن وحال غاربا تضواد كن عصيا على النقد إن لغو نقديو هأوجبين إن لغو نقديو هدغيسرين إن لغو نقديو هأوفريسرين إن لغو نقدييني كاكيرين أدنا إناد عيتنتيد محال نقنيسا عصيا قل بان نقنيسا أدق وصعنيسا أول محاليني وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما محيرتها هو اسكها نقدنا يوم ضد باجرة النقد للنقد وقفك النقدية إلى نقديان قف واحد حاسد كوا محوري إمارة النكي قبي عرب كوها في صومالي ما ينقوم معنا وحوري هدي وقف أي عيابة أن دقح كتورو دقح حدها بنقنيا أي كوا عيابة دقح دمانيا ما كتبه دقح حدها بنقنيا مركا ددك بني آدم كواحدة القافلة تمضي والكلاب تعوي قافلة وإن سعته أيدنا وإن عيان الدونك وإلا سكقر قاليو قفك قيلو أبورا لكن قفك مشروع له عصيا على النقد نقد جمد دقيستو وكيف يديستها نقد جمد أوكي أريد سيدي هذا محي إني صوب بدقيو حاسب نفسك نفت هذا حسابي نفت هذا كأتكو نفت هذا قعنتك وهي مشروع حسابينتو وإنه نقضه مشروع أفر حساب يومي حساب أسبوعي حساب بلأة حساب سنوية قف وإنه انت يشو يوميا وإنه حساب سيد هبينك مركز سيسي حاني سيد محاد قبطي محاند قبل سيدي أتوكتي صلاة دادي محاد قابسي والد كاجي محاد كقابسي أبط كاجي محاد كقابسي أخرستي محاد كقابسي مشروع بين لنكو يالي قفك حسابين وقف مشروع قفك بلا مشروع اسمه حسابين كريو حاسب هذا أسبوعي جمعة مركا ويمادو أسبوعي دمادو إس حسابي هذا بيشو مركا دماتو إس حسابي هذا سنتك مركو دمادو إس حسابي حاسب نفسك مركا حساب قف واحد هذا الذين يحاسبون أنفسهم يتقدمون كو النفتو ذا حسابية هربر بيقادان كو النفتو ذا حسابينا ماشي بفرديان وحاجة واحد هذا حياة السكون هي حياة الحركة dad ku jira nolol istaagtay istaatiko iyo dad ku jira nolol movement oo socda madaxoogu waa socda qalbigoogu waa socda jirkoogu waa socda noloshoodu way kobcaysaa familigoogu way kobcayaan meel bay ku socdaan haba adkaataba nolosha waan sheegi doonaa way socdaan marka qofka waxaa loo baahay inuu isxisaabiyo ma aha inuu isdilo ma aha inuu isba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ها إنه إسلاوعه dad baa jira waxay dadku waxay isku khaldaan waxa loo yaqaan naqdiga qofku inuu isnaqdiyo inuu isxisaabiyo iyo qofku inuu isdilo oo iscanaanto oo isbaabiyo at-tahtiib waxa loo yaqaano maxaan ahay miskiin baan ahay maxaan qaban karayaa maxaan adduunka ku soo beerin karayaa noloshu way iga xun tahay maaragtay dad malihi iskool ma dhigan tol malihi ehel malihi gaaja ay haysa wadankii oo dhan rag baa iska qaatay sheekada aad bari maqlaysid waa saas weeye laa naftaada xisaabi arinta sagaalaad waxa weeye raajic mashaariicaka waxaad projeye lahayd dib u eeg raajic muraajaca samee qur-aanka maxaa ku qoran annafsu lawaama qur-aankeenu wuxuu ina baray sidaas beri buu qoray maxamed khazali raximahullah waan xasuustaa markasti waxaa kasoo wareegtay matalan wallahi 30 sano kasoo wareegtay marka anoo inan dhalinyara ayaan akhriyo aad u yar wuxuu qoray kitaab maahayna majalad buu maqaal ku qoray muraajacatun laa rujuuc sidee meesha ugu qornayd baan arkayaa majalad al-umma la oran jiray oo qatar ka soo baxaysay
oo ninka la dhahdo doctor sheekh cumar cubeyd xasana uu xukumi jiray xasana waxa uu yidhi ninkaasi raximahullah sheekha calaamadii muraajaca waa inaan ismuraajacayno ka fard afraad ka jamaacaat ka axzaab ka duwal ka umam ka caalam islaami in la muraajaceeyo nolosheena maaha inaan dib u noqono dad baa u fahma han ismuraajacayno inay tahay dib han u laabanno la muraajaca raajic mashaariicaka بروجيada aad leedahay بروجي waxaa leedahay caafimaadka بروجي waxaa leedahay dhaqaalaha بروجي waxaa leedahay siyaasadda بروجي waxaa leedahay dacwadda iyo diinta بروجي waxaa leedahay tarbiyada qoyska oo naftaada بروجيada dhan dib u eeg raajic هم اسمود inaad tahay qofkii inaad gaadhay qimadii nacam man iddaca alwusula faqad inhaar qofka yidhahda waa gaadhay u laabmay nacam arrinta tobanaad waxa weeyaan اقرأ كتب التاريخ نولش همودنا إني مانتا بلاميسو دad fara badan baa u haysta inay iyaku yihiin dadka nolosha bilaabaya la 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 noloshana way soo socotay ikhwaani fillah waxa aad sameynaysid oo dhan waa la soo sameeyey waxa inaad samaysid oo laakiin waxa aad nolosha ka taariikhda maxay taariikhdu saddex shay bay leedahay qiraa'atu taariikh shakhsiyaadka matalaya akhri afkaarta taariikhdana akhri taariikhda wax kala soo baxay cibrad kala soo baxay يدا مشروع مشروع كو يتبراد وحوي تعلم كل يوم بل كل ساعة جديدا مال ولا معلومة عصب برو شيء عصب برو واحد هوري وأقول برو مال ولا نرش هذا كسو بيري معلومة عصب هل نقول نقف معلومة عصب أي نكون بيرن كل يوم هو في شأن إلهي مال والبشق قبطه ولذلك إنه يري إن يكون مال والبشق قبطه ها مال والب معلومة عصب هل ضد الله شيء كاستمال دويت واحد الله قف صاحبتين هدو كان مقنادو تضرب سنادات 8 سنادات ودبو كلنتين وحي اد كشي كيسريس 10 سنه كوربو كاشا كليا لا جديد عنده وح عصب وكو شيغي مجرو هو وسيء لماذا؟ لأنه لا يتعلم ما برنايو التعلم لأجل التغيير وإلى الأبرنا وح إلى إسبدلنو ما ها التعلم للتعلم هذا أبرنا سيد إلى وحبرتي واستاتيكو فقه سكون بادقلي فقه الحركة ما قليسي من دقائق شيء مركا مال والبا وحبرتا كورونا وإن مالنتي إلهي كانبا إنه وحي نبرتو حتى كلمة عصب مصطلح عصب علم عصب فقه عصب maaragtay cilmi dacwad cusub noloshu waa bad socota dad baa yidhaahdaa waxaan hore ma u dhacay ma dhicin laakiin maanta u dhacay waa inaan xal loo keeno tacalam kula yawmin jadiidan qafaska ka baxa limaada taciishuuna fi laqfaas ikhwaani fillah maxaan qafasadan nagu cadibay aan ku noolahay limaada asbaxnaa asaara maxaan ugu xidhannahay dad kaleeto limaada naxnu fi laqlaal maxay noo xidhanayaa dowlado iyo ururo iyo axzaab iyo afkaar baaliyo dhammaatay qarnigii 21 ha iska furfurno wax nagu xoog weyn ma jiro naxnu aqwa annaka xoog badan cuquuluna aqwa cuquusheenu way xoog weyn tahay quluubuna aqwa quluubteenu way xoog weyn yihiin laa axada yaxkumu masiirana qofna xakumi kara ma jiro ila allah aan ilaahay ahayn nataxarar aan xorowno waa muhiim arrinta 12aad laa tacish maca alafkaar albaa'isa afkaarta xunxun ee argagaxa badan leh hala noolaan culummada waxaan uga sheekaynaynaa ciyaalka yaryar ee weli aan qaangaarin ka daaya sheekooyinka looga sheekaynaya la oranayo waxa inagu sugaya qabuuraha masas iyo beeyaal iyo mas bidaar leh oo isla markaasina maxaan ku dhahdaa bahal leh oo indhaha kuul ka soo bixinaya dadka ka cabsiinina laa tukhawifu naas dadka waxaa la baraa alafkaar alxaya afkaarta nool إمام مالك بن نبي إمام الفكر بوها إمام الحضار وها وحوي الأفكار الفكرة نوعان أفكار ولا بالنوع أفكار حية وأفكار ميتة أفكار نول هي أفكار هي دماتي وهذا وحوي أفكار نول باجرتا وضدك نول هيصا هي أفكار نول وضدك دشا إن الإسلام هو أفكار نول وقروح بدن لكن داعش هو كصباح إسلام كصباح حركة تشاك صباح وأفكار حية تميت لكن تقدريها أفكار ميتة أجرتها تحيي عجيب أفكار لمطيبة أجرتها لكن وحنا وليس إسرائيل وحي قالت
diin 5,000 sano ka horeysa cibriyadii bay qaateen luqa alcibriya oo dhimatay bay ka dhigteen luqad nool maxay sameeyeen dowlad israa'iil ay ku dhiseen fi qalbi alcaalam alislaami qalbiga dowladda islaamka ka dhiseen waxaas waa in la akhristo anta laa tacish maca albaa'isiin dadka ba'siga ku noole murugada badan le ee cabsida badan le ee naxdinta badan le ee dadka ka cabsiya hala noolaanin afkaartooda hala noolaanin cish maca alaxraar afkaar xora oo nool اوكي arinta 13 لا تستسلم للتحديات dufiyada dhibaatooyinka isku dhiibin hadii laga yiraahdo cudur baa ku dhacay dhiibin waxa uu deerkeernaji wuxuu sheegaa gabadh bukootay 35 sanadood odaygeygina ka dhintay ciyaalkeygii weynay kadibna uu ku dhacay shalal 35 sano ay jiiftay ayaan bay iska dhakhtarka u jiiftay cabsoonaysay iyo akhriday buug waa ajiib buuga waxaa ku qornaa kelmad uu nabi ciise yidhi alayhi salaam nin buu u yimiday faalija oo mashruuc ah oo nus baktiyey wuxuu ka yidhi sarakac oo dhaqaaq ninkii uu kacay uu dhaqaaqay waa mucjiza waa ibraahim waa ciise alayhi salaam yuxyi almowt mowtkuba noolin jirayba gabadhii waxaa galay xoog way sarakacdii dhaqtarka ka baxday 5 sano way fadhideen ma alladii aqaamaha quwatun min adaakhil quwaddii gudahay noolaysay muxuu yidhahdaa nin kitaab qoray kamaa tufakir takuun sidaad ka fikiraysid umaad noqonaysaa okay ha isku dhiibin cudurka ha isku dhiibin kuwa kaa cabsiinaya ha isku dhiibin kuwa ku dilaya ha isku dhiibin mustabidiinta diktaatorada ha isku dhiibin kuwa nolosha intay khadhaadhayaan koranaya wax la samayn kara ma jirto ha isku dhiibin waxaas oo dhan laa tastaslim faqriga ha isku dhiibin haddaad faqiir tahay ha isku dhiibin waxaas oo dhan waxaad tidhahdaa ana aqdir waan karaa waan awoodaa waan samayn karaa waan rabaa inaan sameeyo uriid an akuuna shay inaan wax noqdaan rabaa laa uriidu an akuuna bilaa macnan adduunka la ima keenin inaan maalaana noqdo arinta kale khatit lilmustaqbal arinta 14 mustaqbalka planificationkiisa samee jaangooyintii mustaqbalka samee maanta noolow laakiin qalin iyo bug qaado maxaa noqon doonaa sanadka soo socota 2021 ماذا أريد أن أكون ماذا أريد أن أكون maxaan qori doonaa maxaan samayn doonaa khadad planification imika qaado qalinkaaga ha fadhinin kac toos ha aqbalin kuwa kula fadhi waxaad ku tiraahdaa ma fadhinayo waan kacayaa nacam nabigu muxuu yidhi alayhi salaam hadduu qiyaamihii kacayo idaa qaamat alqiyaama wa fii yadi axadikum fasiila mid gacantiinana ay ku jirto laan fastadaaca an yazracaha uu karayo awoodaya inuu beero hee ha baxsay lama oran dee qiyaama dhacaya falyazracha ha beero marka waxa islaamku wuxuu ina baray alcamalu muqadasun in wax la qabto waa muhiim camal la qabtana maxaa ugu fiican camalka maskaxda dadka nooleyntooda dadka abuuritaankooda dadka hagaajintooda idan maxaan kaa idhi khatid lilmustaqbal 15 isnaci almacruufa liahlihi wagayrih macruuf samee had iyo jeer kun naafican ku wax tarar ahow kun naafican ligayrik gayrkaa wax u tar icmal ligayrika shay eeg qof bini aadana tala sii uu ku guursado tala sii uu ku noqdo shaqo uu ku helo tala sii iskuul uu ku laabmo tala sii uu talo icmal shay adduunkan wax kusoo kordhi nacam laa takun ha noqonin qofka markuu arko fiican ka naxa dad baa jira hadday ku arkaan adoo iska qurux badan iska labis war weli waad nooshahay bay ku leeyihin oo maxaa sugaysa ma alladii kunta tantadir an amuut maxaa sugaysa inaan fool xumaado laa ilaaha ila allah miskiin waxa weeye markaas macruuf samee nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam macruufka dadka u samee walow haddaa wax kale kala wade an talqaa aad kula kulantid wejiga walaalka adoo hee dhoola cadaynaya dhoola cadayntu waa khayr ibtisaamadu waa khayr waxay ku tusaysaa inaad nooshahay dad baa jira cabuusa waxani waa maxayo murugoonay laa idxak dadka u qosol ibtasim nabigu wuxuu ihi watabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa walaalka ood ku qosashid afkiisa ku dhowla cadaysid hortiisa waa sadaqad ugu dambayntii 16 waxaan ku leeyahay ictikaaf baa la galayaa ramadaan baa soo galay koronana waa lagu jiraa
مساجدين إن بدأ وين أجحران تاي اعتكافا قرينا كو اعتكافا نية الاعتكاف فاهليسين ما حد سمينيسين اعتكاف كاكرك برنامج نولالات أوكي قرانكي لنولا شيهسي ذكرجي أخرستيسي إسلا أخرنتي أذكارتا إيا وذا نولا شيهي إسحسوسنتي برنامج اعتكاف ومحي العكوف على الذات إن أدسشد من أنت أول محاطهي فرصكا ومحي ضعفكا ومحي قوتها ومحي واللحية طبعا عريمود وحي نيسو بندقين ومشروع أن أرنكرنه مشروع كورونا سيدان نرشينا أكبعنا إن شاء الله تعالى هل كاسبان كسي ودين دونا هدو إلهي راهدو برنامج كينا أن أبحني ماركتي دسمها قفك بدايانك وحلقة دي صدحات ما تاهد ومهسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته